kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadi doonana waxa kamid ah dawladda federaalka Soomaaliya oo si adag uga jawaabtay go'aankii midowga Afrika ee arrimaha Soomaaliya wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dubbe oo shaaciyay in dawladda federaalka aysan ka tanaasuli doonin muddo kordhintii baarlamaanku u sameeyay hay'adaha dawladda maxay yihiin qodobada ay soo dhaweysay dawladdu warbixin ku saabsan nuxurka shirkii jaraa'id ee wasiir Dubbe ayaan idin soo gudbin doonaa insha Allah wararkeena kalena waxa kamid ah midowga Afrika oo la filayo inay mid kamid ah madaxweynayaasha Afrika u soo magacaabaan Soomaaliya si uu dhexdhexaadiyo xiisadda siyaasadeed ee ka dhalatay muddo kordhinta dawladda federaalka Soomaaliya haddaba muxuu ergeyga la soo magacaabayo ka bedeli karaa ismarwaaga siyaasadeed ee Soomaaliya iyo hawlgalka midowga Afrika ee AMISOM ee Soomaaliya oo war culus ka soo saaray dagaalka ay kula jiraan al-shabaab iyo guluf dagaal oo ay kaga dhawaaqeen qaybo kamid ah gobolka Shabeellaha Hoose qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka insha Allah waana habeen sabti ah 24 bisha afraad ee Abriil sanadka 2021 barnaamijkan wararka Soomaaliya waa mid aan ku soo gudbino dhammaan dhacdooyinka dalka haddaba daawada ka qayb qaado dib u dhiska dalka inagoo ka dheeraanayna wax walba oo dib inoo celin kara waad ku mahadsantihiin inaad taasna la fahantaan fadlan la faafiyo wararka oo gaarsiiyo saaxiibadiina idinkoo ku share gareynaya baraha bulshada mahadsanidin aynu ku bilowno wararkeena dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa jawaab rasmi ah ka bixisay qaraarkii ka soo baxay golaha nabadda iyo ammaanka midowga Afrika ee la xiriiray xaaladda ismarwaaga doorashada Soomaaliya wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dubbe oo Muqdisho ku qabtay shir jaraa'id ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan qodob kamid ah qodobada ka soo baxay golaha ee nabadda iyo ammaanka midowga Afrika balse ay diidan yihiin laba qodob oo kamid ah qodobadii ka soo baxay golaha ammaanka iyo nabadda ee midowga Afrika wasiir Dubbe waxa uu sheegay inay soo dhaweynayaan qodobka la xiriira inay ergey gaar ah uu midowga Afrika u soo magacaabo Soomaaliya si uu dhexdhexaadiyo dhinacyada Soomaalida taasi oo uu sheegay inay ahayd soo jeedin ka timid madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wasiirka ayaa sheegay in ergeygan uu dawladda Soomaaliya kala shaqeyn doono sidii ay dalka uga dhici lahayd doorasho qof iyo cod ah iyo sidii shacabka Soomaaliyeed mar kale gacantooda loogu soo celin lahaa awoodda sida uu hadalka u dhigay waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya ay diidan tahay qodobka la xiriira cambaareyntii uu golaha nabadda iyo ammaanka midowga Afrika u jeediyay muddo kororsigii uu golaha shacabka u sameeyay hay'adaha dawladda iyo madaxweynaha waxa uu intaasi ku daray in Soomaaliya ay sidoo kale diidan tahay qodobka la xiriira in ciidamada AMISOM ay la socdaan dhaqdhaqaaqa ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya wasiir Dubbe waxa uu sheegay in labadaasi qodob ay yihiin kuwa ka hor imaanaya madax banaanida Soomaaliya oo ay ka dambeeyaan dalalka Kenya iyo Djibouti sida uu hadalka u dhigay waxa uu sidoo kale wasiirku eedeyn u jeediyay dawladaha Kenya iyo Djibouti waxa uu sheegay in dawladda Kenya aysan la yaabaynin oo uu xiriirkoodu xun yahay balse waxa uu sheegay in ay aad uga xumaadeen in Djibouti ay siyaasadeyso amaba ay ka hortimaado qorshaha dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa uu tilmaamay in kursiga hadda ay ku fadhiso dawladda Djibouti gudoomiyaha golaha nabadda iyo ammaanka ee midowga Afrika ay xaq u lahayd Soomaaliya balse dawladda federaalka ee Soomaaliya ay uga tanaasushay dhigeeda Djibouti iyada oo ku ixtiraamaysa sida uu hadalka u dhigay waxa uu sheegay wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya inay soo dhaweynayso hadalkii ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay Mareykanka iyo dhammaan saaxiibada Soomaaliya mar wax laga weydiiyay wasiir Dubbe sababta ay u taageerayaan qoraalkii ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waxa uu sheegay in dawladda ay iyadu xaq u leedahay in ay ka hadasho arrimaheeda gaarka ah isla mar ahaantaana ay sidoo kale soo dhaweyn karto qodobada qaar oo ay tala ahaan ugu soo jeediyaan saaxiibada taageera ee Soomaaliya wasiirka warfaafinta waxa uu ku nuuxnuuxsaday in dawladda federaalka ee Soomaaliya aysan marnaba ka tanaasuleynin qorshihii amaba go'aankii baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaan golaha shacabka 12 Abriil uu muddo 2 sano u siiyay dawladda federaalka ee Soomaaliya in ay sii joogto xafiisyada kala duwan waxa uuna sheegay in qaraarkaasi uu yahay qaraar aad u culus isla marhaantaana uusan jirin qaraarka weyn oo dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ay qaadanayso haddaba aynu isla daawanno in yar oo kamid ah meelihii ugu xasaasana shirkii jaraa'id ee uu qabtay wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cusmaan Dubbe qodobkan ka qabnaa waxa weeye waanu dareen ka muujinaynaa iyo su'aal golaha nabadda iyo ammaanka Afrika
ee loo yaqaano PSC Peace and Security Council wuxuu cambaareeyay go'aankii golaha baarlamaanka Soomaaliya ee 12 Abriil ee ku saabsanaa in dalku aado doorasho qof iyo cod ah iyo matalaad shacab oo dhammaystiran ma jiro urur caalami ah ama urur goboleed oo sharciyan cambaarayn kara go'aan baarlamaan dal madax bannaan arrintaas waxaan u sheegaynaa inaanay ahayn sharci iyo dhaqan dawladnimo dawladda federaalka Soomaaliyana ma soo dhaweynayso cambaaraynta qodobka kale ee isagana aanu dareen ka qabna aan rabno inaan shacabka Soomaaliyeed la wadaagno waxa weeye arrinka ku saabsan ciidamada qalabka sida qodobkaasi waxaan u aragnaa mid niyad jabinaya ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed inkastoo qalbigoodu yahay qalbi xadiida oo aan marnaba ka tanaasuleynin difaaca dalkooda haddana qodobka ka soo baxay Peace and Security Council-ka Africa wuxuu u muuqdaa qodob niyad jabinaya ciidamada qalabka sida Soomaaliya shirka waxa ka soo baxay in loo soo jeediyay ciidamada nabad ilaalinta ee u jooga dalkeena AMISOM inay la socdaan ama monitor gareeyaan dhaqdhaqaaqa ciidamada qalabka sida Soomaaliya ciidamada AMISOM inay la socdaan ama monitor gareeyaan dhaqdhaqaaqa ciidamada qalabka sida Soomaaliya waa arrin runtii la yaab leh arrinkaasi koow waa sharci darro mar labaadkana wuxuu si cad uga hor imanayaa mandate-ka ama waajibaadka shaqo ee AMISOM oo ku cad qaraarka golaha ammaanka Security Council-ka United Nation-ka ee tirsigiisu yahay 2568 ee soo baxay 12 March 2021 Security Council-ka ama golaha ammaanka qaramada midoobay waa hay'adda ugu sarreysa ee sharciyada dunida soo markaa kan Afrika wuxuu ka hor imanayaa kii weynaa ee Security Council-ka oo aanu ayidsanahay wuxuu kaloo ka hor imanayaa qorshaha Soomaaliya ee mas'uuliyad kala wareegidda ciidamada AMISOM sida la wada socoteen ciidamada Soomaaliya labadii usbuuc ee soo dhaafay waxa ku arkaysay inay mas'uuliyaddii kala wareegayaan AMISOM waa xagaag wali warqaa TV ayaad nagala socotaan iminkana ururka midowga Afrika ayaa la filayaa inuu dhawaan ergey cusub oo gaar ah u soo magacaabo Soomaaliya si uu dhexdhexaadiyo saamilayda siyaasadda dalka kadib go'aankii ka soo baxay golaha nabadda iyo ammaanka ururkaasi ila wareedid diblomaasiyadeed ayaa waxa ay sheegeen in ergeygan ee laga yaabo inuu noqdo madaxweynihii hore ee dalka Sierra Leone Ernest Kroma isaga oo taageero ka helaya qaar ka mid ah dalalka galbeedka Afrika oo magacaabistiisa aad u ololeynaya sida Nigeria, Ghana, Sierra Leone iyo Senegal. Dalalkan oo u badan kuwa waqooyiga Afrika ayaa iyana u ololeynaya xogiyihii hore ee jaamacadda Carabta ee Ammar ee Musa inkastoo ay u badan tahay in loolanka xilkan uu ku adkaado Ernest Kroma. Go'aanka midowga Afrika ayaa yimid kadib markii madaxweyne Farmaajo uu ka codsaday madaxweynaha dalka Congo ahna gudoomiyaha midowga Afrika Felix Tshisekedi inuu dhexdhexaadiyo Soomaalida hase ahaatee dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegaya in Farmaajo uusan marnaba filaynin qaraarkii adkaa ee midowga Afrika ee sida weyn loogu cambaareeyay muddo kororsiga wargeyska ee Africa Intelligence ayaa qoray in Kenya oo ay xiisad kala dhaxayso Farmaajo ay kaalin weyn ku leedahay in Felix Tshisekedi uu ku guuleysto xilka gudoomiyaha midowga Afrika iyadoo Uhuru Kenyatta uu booqday Kinshasa maalin kadib markii uu ku soo laabtay ama uu ka soo laabtay Farmaajo taasi oo suurtagal tahay in Kenya ay kaalin ka ciyaartay jabkii siyaasadeed ee uu madaxweyne Farmaajo kala soo kulmay midowga Afrika dowladda Soomaaliya ayaa qaraarka ka hor ka digtay in Kenya iyo Djibouti ay faragelin ku hayaan go'aanada golaha nabadda iyo ammaanka midowga Afrika hase ahaatee dadka siyaasadda falanqeeya ayaa rumaysan inay ahayd diblomaasiyad xumo iyo garasho la'aan siyaasadeed oo markaasi ay dowladda Soomaaliya ku wajahday midowga Afrika ergeyga cusub ee midowga Afrika ayaa suurtagal ay tahay inuu horseedo in madaxweyne Farmaajo uu tanaasul isagu la yimaado sidan oo kale ayaa sanadkii 2010 waxa ay Afrika ergey gaar ah u soo magacaabeen Soomaaliya kadib markii baarlamaankii xilligaasi uu sameystay muddo kororsi ergeygaas oo ahaa madaxweynihii hore ee Ghana ee Cherry xilligaas ayaa waxaa dalka ra'iisul wasaare ka ahaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha Soomaaliya dadaaladii Cherry ayaa ku dhameeday heshiiskii Kampala Accord ee uu ku baxay
madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo markaasi dalka ra-iisul wasaare ka ahaa. ugu dambeyntiina wasiirka warfaafinta iyo wacyigelinta ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa waxa uu taliyayaasha ugu sareeya ee ciidamada AMISOM kala hadlay sugidda ee ammaanka ee deegaanada koonfur galbeed iyo sidii dagaal ka dhana al-shabaab loogu qaadi lahaa deegaanada maamulkaasi. kulankan ayaa waxa looga hadlay xoojinta wada shaqeynta iyo dardargelinta howlaha lagu sugayo amniga magaalada Barawe ee caasimadda maamulka koonfur galbeed Soomaaliya. saraakiisha ciidamada AMISOM ayaa waxa ay halkaasi ka ballan qaadeen in ay sugi doonaan dhammaan nabadgelyada ee magaalada Barawe oo caasimad u ah maamulka koonfur galbeed Soomaaliya inkastoo haatan uusan ku shaqeynin. waxay ballan qaadeen in ay sidoo kale dagaal ka dhana al-shabaab ee ka fulin doonaan ama ay ku qaadi doonaan deegaanada gobolka Shabeellaha Hoose iyo guud ahaan maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ay kaga sugan yihiin dhaqdhaqaaqa al-shabaab ayaa ku xoogan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya waxa ayna dagaalo culus kala kulmaan oo ay isku wajahaan si kafool ah dowladda federaalka ee Soomaaliya ciidamadeeda iyo kuwa AMISOM ee Soomaaliya u jooga in ay nabad ku soo dabaalaan dalkeena. qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay warkeena tan iyo warkan war la mid ah inta aynu dib ugu kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.